bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawa idin haya waxaa ka mid ah qarax baabuur oo qasaare geysto oo lagu weeraray xarunta degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir Hirshabeelle oo jawhar ka soo irisay guddi qaadaya imtixaanka oo xukuumadda ay u dirtay iyo madaxweyne Waare oo sheegay in mas'uul ay ka yihiin waxbarashada ardayda Hirshabeelle Kenya oo kordhisay miisaaniyadda ku baxaysa muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya MSF oo sheegtay in uu kordhay dhaqaalaha Soomaaliya madaxweyne Dani oo faahfaahin ka bixiyay fashilkii shirki Garowe iyo iskaashiga uu la sameystay madaxda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha Itoobiya oo markii ugu horeysay booqasho ku tagtay Kenya iyo goobo shidaalka laga soo saaro oo Sacuudi uu leeyahay oo la weeraray daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa maanta lagu weeraray xarunta degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir halkaas oo ay si aad ah maalmihii u dambeeyay u adkeeyeen ammaankeeda ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu yaraan 4 qofood ayaa ku geeriyootay halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu gudaha u galay xarunta degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa xarunta degmada ka galay dhinaca waqooyi oo ah goob ay degan yihiin dad danyar ah oo ku nool guryo ay ka sameysteen cooshado saraakiisha ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in baabuurka waxyaabaha qarxa sida uu ka soo galay degmada dhinacaan ku sugnayn ilaalada degmada halka jidadka kale ee soo gala degmada ay si aad ah u adkeeyeen ciidamada ammaanka maamulka degmada Wardhiigle ayaa waxa uu sheegay in halka gaariga uu ka galay degmada aysan ahayn meel aysan ka filayn in qarax uu ka soo galo laakiin tani cashir u tahay hadda kadibna ay adkeyn doonaan ammaanka degmada xogayaha degmada Wardhiigle Cali Aadan Warsame ayaa la sheegay inuu ku jiro dadka ku dhaawacmay qaraxa maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa xarunta degmada Wardhiigle ka socday raashin qaybin loo qaybinayay dadka masaakiinta ah ee ku nool degmada laakiin maanta markii qaraxa ismiidaaminta uu ka dhacay gudaha xarunta ma aanu joogin dadkaasi xarunta degmada Wardhiigle oo ku dhow aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya ayaa waxa bishii hore booqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas uu kula hadlay shacabka degmada iyadoo la xasuusto in xilligaasi madaxweyne Farmaajo uu hanjabaad u jeediyay dadka rabshadaha ka wada magaalada Muqdisho bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa 2 qarax oo isxiga waxa lagu burburiyay xarumaha degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka lagu burburiyay xarumaha degmooyinka magaalada Muqdisho laakiin saraakiisha ammaanka waxay warbaahinta u sheegeen in weerarkii maanta lagu qaaday xarunta degmada Wardhiigle ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jawhar ka soo eriyay guddi qaadaya imtixaanka oo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay u dirtay magaalada Jawhar iyadoo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay mas'uul ka yihiin waxbarashada ardayda Hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta warbaahinta u sheegay in maamulkiisu uu si gaar ah u sameysanayo imtixaanka dugsiyada sare kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay baabi'isay imtixaankii dhawaan la qaaday kadib musuqmaasuq xoog leh oo hareeyay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabeelle oo maanta dib ugu laabtay magaalada Jawhar ayaa la hadlay boqolaal arday ah oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Jawhar kuwaas oo dhigay banaanbax ka dhan ah wasaaradda waxbarashada waxaana madaxweyne Waare uu ku amray guddiga qaadista imtixaanka oo wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ay u soo dirtay magaalada Jawhar inay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho madaxweyne Waare ayaa waxa uu yiri hawshiina waa gudateen meesha ka timaadeen ku noqda amnigiina iyo joogitaankiina dhibaato nugu yahay sidoo kale madaxweyne Waare ayaa ugu baaqay wasaaradda waxbarashada in si degdeg ah ay u sameeyso isla xisaabtan si cadaalad loo horkeeno cid ka dambeysay fashilka lagu sameeyay imtixaanka ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada madaxweyne Waare oo si hadlay waxa uu yiri maanta wixii ka dambeeya waxbarashada ardayda Hirshabeelle waxa mas'uul ka ah dawlad goboleedka Hirshabeelle warkan ka soo yeeray madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku soo beegmay xilli kumanaan arday ah oo ka cabanaya baabi'inta imtixaanka dugsiyada sare ee dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday ay maanta wadooyinka magaalada Jawhar iyo wadooyinka magaalada Beledweyne ay ka dhigeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya
dowladda Kenya ayaa kordhisay miisaaniyadda ku baxaysa muranbadeedka kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa sare u qaaday lacagaha ay ugu tala gashay in ay ku wajahdo kiiska muranka ee dhinaca badda ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya. wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay baarlamaanka Kenya horgeysay miisaaniyad cusub oo lagu tala galay qareennada difaacaya Kenya. miisaaniyadda sanadkii hore ee kiiskan ee dhinaca Kenya ayaa gaaraysay 1.7 bilyan oo lacagta Kenya ah, waxaana hadda ay gaarsiiyeen ilaa 2 bilyan oo shilin oo lacagta Kenya ah. lacagta dheeriga ah oo ay ku dartay ayaa gaaraya ilaa 300 oo milyan oo shilinka Kenya ah, waxaana saraakiisha wasaaradda maaliyadda Kenya ay sheegeen in kiiska oo dib u bilaabanayo bisha September ee sanadkan uu u baahan yahay miisaaniyad dheeraad ah, iyagoo ka codsaday baarlamaanka Kenya in uu meel mariyo miisaaniyadda. Kenya waxa ay sheegaysaa in haddii kiiskan loo xukumo dhinaca Soomaaliya ay weyn doonto qayb ka mid ah bariga, sidaa darteedna aysan ku qanci karin xukun noocaasi ah. waxaa kaloo ay warbaahinta Kenya baahinaysaa in inta badan wadamada caalamka aysan dhaqan gelin xukunada maxkamadda ICJ isla markaana la dafiro. hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaano IMF ayaa sheegtay in uu kordhay dakhliga dowladda Soomaaliya. IMF ayaa sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya sare u kacay 3% sanadkan kala barka marayo ee 2019, taasina ay tahay tilaabo fiican oo horey loo qaaday. hay-adda lacagta adduunka ayaa Soomaaliya ku amaantay in dhaqaalaheeda uu sameeyo korar fiican, taasina ay tahay soo kabasho uu sameeyo wadanka muddo badan ku soo jiray dagaalo sokeeye iyo jahwareer siyaasadeed. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in sanadkii hore ee 2018 dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhay 2.8%, halka sanadkan la qiyaasayo in uu kordho 3%. dhinaca kale hay-adda ayaa sheegtay in sicir bararka Soomaaliya uu isna hoos u socdo marka la fiiriyo sanadkii hore. hay-adda ayaa xustay in sicir bararka Soomaaliya uu hoos u dhacay 3%, halka sanadkii hore ee 2018 uu ka ahaa 3.2%, taasina ay qayb ka tahay korarka ku imaanaya dhaqaalaha Soomaaliya. warbixinta ay soo saartay hay-adda ayaa ku soo beegmaysa xilli ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre shalay uu magacaabay guddi ka shaqeeya qorshaha deyn cafinta Soomaaliya oo uu sheegay in uu marayo meel wanaagsan. sidoo kale warbixinta ayaa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay in natiijo fiican laga soo gaaray shirkii looga hadlayay dhaqaalaha Soomaaliya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay fashilkii ku yimid shirkii Garowe iyo isgaashaan buuraysi uu la sameystay hogaamiyaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay shirkii fashilka ku dhamaaday ee Garowe ku dhaxmaray madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. madaxweyne Dani ayaa sharaxay qodobada ay isku mari waayeen madaxda dowladda iyo hogaamiyaasha gobolada. qodobka ugu xasaasisanaa shirka wuxuu ahaa in loo baahday in la helo golo siyaasadeed oo ay rabeen dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, sida uu hadalka u yiri madaxweyne Dani. madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxa ay si cad u sheegeen in masiirka dalka loo baahan yahay in tala laga wada yeesho, in isku aragti laga noqdo xeerka doorashooyinka iyo waxyaabaha masiiriga u ah ummadda Soomaaliyeed. madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu badan ee laga dooday qayb ay ka ahayd qaybsiga kheyraadka dalka oo batroolku uu ka mid yahay. dalka Soomaaliya wuxuu soo maray burbur, dadka Soomaaliyeed waxay ku kala duwan yihiin wax badan, si loo mideeyo ayaa federaalka loo qaatay si aan mar kale lagu laaban dhibaatooyinkii dagaalada sokeeyay u horsadeen dalka iyo amni la'aanta. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa baaq u diray madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah waa kuwa ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, waana inay ka shaqeeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed. waa in la wada hadlaa haddii xataa la kala aragti duwan yahay. waxyaabaha la isku afgaran waayo waa in dib loo dhigaa lagana wada hadlaa kuwa lagu murunsan yahay, ayaa uu yiri madaxweynaha Puntland oo warbaahinta la hadlay. dhinaca kale madaxweynaha Puntland waxa uu ka hadlay sababta ay Puntland iskaashi ula yeelatay madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. horey waxaan iskaashi ula lahayn Jubbaland iyo Galmudug, haatana Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaan uga faa'iideysanaynaa in wada shaqayn la helo. Hirshabeelle dhaqaale ayaa naga dhaxeeyo,
koonfur galbeed sidoo kale dhaqaale ayaa naga dhaxeeyo ayaa uu yiri madaxweyne Dani. hadalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ahaa mid aad loo wada sugayay maadaama shirkii dhawaan Puntland ay martigelisay ee ka dhacay Garowe uu ku dhamaaday natiijo la'aan isla markaana madaxdii ka qayb gashay ay ku kala dareereen iyadoo aan wax natiijo ka soo bixin shirkaasi. wararka dibadda caawa wararka TV daawadayaal idin hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Itoobiya ayaa markii ugu horeysay booqasho rasmi ah ku tagtay dalka Kenya. madaxweynaha Itoobiya Sahle Working Saweda ayaa gaartay dalka Kenya taasoo noqonaysa booqashadii rasmiga ahayd ee ugu horeysay oo ay dalkaasi ku tagto tan iyo markii xilka loo doortay sanadkii hore. sharciga dalka Itoobiya ayaa dhigaya in jagada madaxweynenimo ay tahay maamuus, ra'iisul wasaaraha ayaana awoodda siyaasadeed ee dalka iskale. booqashadan halka maalin ah ayaa ujeedadeedu ay tahay in ay la kulanto madaxweyne Uhuru Kenyatta si ay uga xaajooto heshiis laba geesood ah iyo danaha gobolka sida ay bahaysay wakaaladda wararka Itoobiya. Kenya iyo Itoobiya waxay daneynayaan inay xoojiyaan ganacsiga xadka isaga kala talaabo sida ay door muhiim ah uga ciyaari lahaayeen ammaanka gobolka iyo sidii ciidamo ay u geyn lahaayeen Soomaaliya. dawladda Sacuudiga ayaa war ka soo saartay weerar qaraxyo ah oo lagu qaaday goobo shidaalka laga soo saaro oo ku yaala waddanka Sacuudi Carabiya. wasiirka batroolka Sacuudi Carabiya Khalid bin Abdulaziz Al Fatih ayaa sheegay in laba goobood oo kuwa batroolka laga soo saaro oo dalkaasi ku yaala lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay. wasiirka ayaa sheegay in dab ka dhashay weeraradaasi diyaaradaha loo adeegsaday ee lagu qaaday goobaha shidaalka ee dalka Sacuudi Carabiya uu sababay burbur sida warbaahinta uu sheegay. wakaaladda wararka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in shirkadda shidaalka ee Sacuudi Carabiya ee Aramco ay hakisay tubooyinkii shidaalka ka soo qaadi jiray goobaha qaraxyada laga fuliyay oo haatan ay qiimeyn ku wadaan qasaaraha burbur ee qaraxaasi u geystay si dayactir loogu sameeyo goobihii burburay. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen warka TV caawa waa naga inta